بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحيران جنرال كنسير جرافيكس سود هذا. أنت هذا إنه عزم من حالنا يجينا سود هذا مركلة كسود هذا مقال حسب. ما أنت مقال كنا وحا إنه كبرنا إنا سيدا مركي أدربتيد كمبيوتر كاجا إن أتكشفتيد Adobe Illustrator sideed ugu shuban lahayd ayaynu muuqaalka naga maanta ku baranaynaa balse ka hor inta aynan casharka u guda galin waxa aan ka horeysiinina xogayar ogeysiinta oo runtii khiyaarta ku cusub waxaan u sheegaynaa haddii aad tahay ruux jecel barashada xirfadda multimedia ku soo dhawow channelkani waa channelkaagii channelka Nasir Graphics rukumo oo taawa calaamada gaduudka ee subscribe-ta sidoo kalena gambareelka furo si aan muuqaal walba aan soo gelino kugu soo dhaco sidoo kalena haddii aad garanaysid ruux jecel barashada xirfadda multimedia la wadaag channelkani muuqaalkanina dhameyso haddii aad ka heshid dabcan la garee haddii aanad ka helin dislike garee sidoo kalena muuqaalada channelka ku jira mid u daabo runtii wax badan ayuu ka anfici doonaa dhanka iyo xirfadaada multimedia waa hagaag aan u guda galno muuqaalkeena marka ugu horeysa horta waxaan u tagaynaa ama aanu ogaanaynaa computerkaaga noociisa ayaad rabtaa inaad ogaatid dabcan hadda waxaan rabnaa inaan ku shubno Adobe Illustrator waa 2020 sida u jeedaan Adobe Illustrator kan marka waxaa lagu shubi karaa computer type-kiisa ama noociisu yahay 64 bit Windows-guna inuu yahay la rabaa Windows 8 iyo 10 Windows-yada ayaa ku shubi kartaa Windows 7 maya uma isticmaali karaysid soo marka ugu horeysa waxaan ku tusayaa wadada aad u mari lahayd computerkaaga nooca uu yahay iyo Windows ku jira iyo meelaha waxa ka ogaan lahayd marka ugu horeysa waxaad imaanaysaa halkan waxaad ku qoraysaa setting ayaad qoraysaa dabcan setting-kan markuu ku yimaado waad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid halkan system-ka ku qoran waa ku dhufan kartaa halkan muuska ii saaran system-ka ayaad ku dhufanaysaa amaba halkan find-ga ama searching-ka box-kan yar halkan kugu yaala ayaad ku raadin kartaa soo marka labada wayba waad maxaan ku yiraahdaa aad ku heli kartaa meesha aad ka ogaan lahayd about-ka yani aan ugala jeedaa computerkaaga waxa uu ku saabsan yahay soo halkan haddii aan had ku qorno about haddaan ku qorno oo aan u dhahno about your PC yani ku saabsan computerkaaga way macnaha haddii halka ku dhufano halkan xogta computerkeena dhan ayuu noo soo dhigayaa annaga marka hadda muhiimadeena waxa weeyaan device specification halkan ay noogu qoran tahay muhiimadeena ama ma ahan miya haddii aanu dib u laabano haddii kale waxaa sameyn kartaa setting-ka mar labaad tag markaad tagtid aad halkan ku dhifatid adigoo halkan about aanan ku qorin halkan system-ka waad ku dhufan kartaa markaad ku dhifatid dabcan halkan hoose ayaad imaanaysaa oo about-ka ku qoran yahay halka hadda ku dhifatid oo about-ka aad ku dhifatid dabcan meesha ayuu ku keenayaa computerka iyo type-kiisa iyo Windows-ga nooca ku jira iyo waxyaabahaas ay ku ogaanaysaa soo marka annaga halkan device specification-ka ayaan rabnaa marka device-ka specification waxaan waliba diiradda saaraynaa installed RAM meesha ku qoran tahay inuu RAM-kaagu ahaado 4GB ugu yaraan ama 8GB ama 12GB 16 sidoo kale system type-ka waad u jeedaa waa 64 bit operation system-ka soo marka hadda labadaas ayaa noo muhiim ah Windows-gana waa kana Windows 10 waa Windows 10 Pro version-kiisuna waa 2004 taariikhda lagu sheegay waa ka ujeedaa waagaag marka inta marka soo ogaano waan iska soo kala gareynay waagaag halkan folder ayaan ku dhufanaynaa folder marka ku dhifatid ku soo furmo Adobe Illustrator ayaa sii furaysaa halkan setup-kan ayaan laba mar klik siinaynaa laba mar klik siinaa dabcan waxaan leenahay do you want to allow this app from an unknown publisher okay ayaan leenahay yes ayaan leenahay soo marka hadda waa uu install gareynayaa uu ku shubayaa halkan fiiri marka qadka waa inaad iska xirtaa internetka waa in aad iska xirtaa continue ayaan leenahay meesha kore language-ka waa inuu English North ku ahaada English North inuu ku ahaado way soo marka English North ku dhaaf
default location na ku daa continuous ka dheh. Okay, marka waan isku soo laabanaynaa inta uu ka dhameynayo mada sugi karno. Markuu dhameeyo halkan uu 100% gaarsiiyo ayaan dib iskugu soo laaban doonaa. waa tahay waa uu dhameeyay hadeer saan u jeedno. Installer 2020 has been successfully installed ku yiri close ay leedahay. hadeer waa uu ku shubay waa iska soo close gareynaysaa. markaad soo close gareysid طبعا in uu ku shubmay iyo in kale, yani in computerka uu ku install gareysmay iyo in uu ku install gareysmin waxaad ku ogaanaysaa horta marka ugu horeysa halkan desktopka ay wuxuu ku soo dhigayaa waxaan ku yiraahdaa shortcut folder ayuu ku soo dhigayaa. haddii aad doonto hadhoodii dambe halkan waad ka kicin kartaa. kan hadda muuska iyo dul saaran aad ka kicin kartaa. sidoo kale qaybta searchingka iyadana waa ka raadinaysaa. waxaad ku qori kartaa illustrator aad ku qoraysaa. طبعا waa kaasa waa uu ku shubmay. marka asxaabay maanta casharkeena intaasi ayuu ku saabsiisan yahay ama intaas ayuu ku saabsanaa. marka inta aynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxa aan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadiino.